السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدوك السلام يا صاحب سري ميل كستو الدولة كجوكتو marwina ku fogaado salaanta iyo meeshaan joogay waxaan ahay aad iyo aad idin salaamaya dhamaantiin waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo muhiim ah qodobka ugu horeeya oo ah arinkii maanta dhacay wallahi waa arin aad loogu farxo haddiina dadyooga shacabka ee dega muqdisho ama dadyooga shacabka ah ee dega Soomaaliya wallahi waa wax la xaqirayo ma ahan wax dadka ay xaqiri karaan ma ahan waa wax aad u wanaagsan runtii waan soo dhaweynaa wixii baarlamaanka maanta ka dhacay waa wax aad u wanaagsan aad iyo aad waan salaamaya qiyaarta soo dhawaada mar kale waxaan rabaa inaan dul istaago wixii maanta baarlamaanka ka dhacay oo ahayd labada sano ee dheeriga ahayd ee la codeeyay in lagu daro xukuumadda maanta jirta siiba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta runtii runta la isku soo sheegay wixii la sheegi lahayna laga soo la ansixiyaba runta markii laga hadlo qodobka ugu horeeya horta waxay tahay arinka maanta dhacay runtii waxaa cadaatay wixii horta mucaarad ahay hadda mucaarad ahayd iyo hadii kaleetaba waxaan arkaynay dadkii baarlamaanka ku jira maanta runtii tirada ugu badneed ayaa codeysay 140 something ayaa codeysay aad iyo aad marka waxaad ogaanaysaa inaan maanta loo kala harin mucaarad iyo muxaafid runtii saddex qofood ay ka aamustay meeqa noqon kartaa mucaarad ahaan marka waa dareemi kartaa maanta wixii dhacay waa wax aad u wanaagsan ma sha Allah aad iyo aad waan soo dhaweynaa sababtoo ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu taagnay 4 maalmood oo xiriir ah ayuu tagayaa tendadii ay jeclaadeen oo afisyooni ahayd taa oo ahayd in heshiis sax ah laga gaaro wuxuu u taagnaa dhowr iyo 20 saacadood aan heshiino sidee ku dhacday madaxweyne dal oo amarkiisa la diidayo sidee ku dhacday seena ku keeneen labada maamul goboleed aqliga ha shaqeeyo maanta way barooranayaan way ooynayaan maanta way shalaynayaan waliba waxay taagan yihiin see maxaan subinaa maxaan kordhinaa waxaa dhata marka maanta in ayako taagan in dalka dawlad ay ka jirto ayaa la tusamaantay wallahi waa wax sax ah waa wax xaqiiq ah waa wax loo wada jeedo waa wax dawladnimadeena ku dhisan dalkaanina wallahi hore u soconaya waxaad ogaataan madaxweynaha waa qof aan cabsanin cidna aan ka cabsanaynin shisheeyaan ka cabsan shisheeyaan u danaanin runtii wuxuu u hadlaa wallahi dal jecelnimo ana intaan ka arkay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin dal jecel waa nin dal jecel waa nin dalkiisa jecel inay horumar gaarto waana ku taageerinaa waana la taaganahay in dalkan oo horumar maanta intuu taagaya in ka sareyso inuu tago maanta waa jeclaan lahayn intaan in ka weyn jeclaan runtii waxaan rajeynayaa labada sano soo socoto in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah been idin sheegi maayo waan ka qayb galayaa qofka ugu horeeyay ee codeyntaas ka qayb gala ayaan noqon doona haddii la heedmo waana codeynayaa codeynta ka qayb galayaa waxaan iraahdo ma garanayo wallahi aad u farxay runtii sababtoo ah 22 jir baan ahay macnaha waxaan ku soo dhex jirnay dagaal iyo dil iyo qax iyo dhibaato ku dhex jirnay laakiin maanta waxaan taaganahay meeshii aan ku codeyn lahayn meeshii aan ku dooran lahayn madaxweyne saxda ah runtii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ayuu soo dhameystay 2 sano ayaa loogu daray 4 kale ayaa loogu dari doonaa 20 sano oo hadda soo socotana waa doonina inuu noqdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan inuu noogu hogaamiyo hogaan saxna noogu noqdo diyaara unaan aniga number 1 waaxid ayaan ahay waana ka qayb galayaa codeynta meel kasta oo aan dunida ka joogo waan soo baxayaa waan imaanayaa waana ka qayb galayaa codeynta intaas waxa ii keenay waxay tahay waa dal jecelnimo iyo ninka wax noo tarayo runta ka hadlayna qofka wax tara ayaa naka dooranaa qofka aan wax taraynin wax tarna lahayn dooranayno mana doonayno waxna ma ku falayno runta idii sheega anigu diyaaran ahay waana ka qayb galayaa waana ku faraxsanahay maanta in lagu daro 2 sano oo dheeri ah oo dalkaani loo sheego inuu leeyahay baarlamaan shaqeeya inuu yahay dalkaani dal madax banaan ayaa la sheegay sababtoo ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u taagnay in doorashadani ay dhacdo diyaar u ah dadka leh doorasho ma u diidanay maxaa geeyay asoo madaxweyne ah inuu 4 maalmood oo dhan oo dhex fadhiyo afisyooni si ku dhacday sheegay laftirka rag maamul goboleed xun oo yucyuc ah oo bucbuca 2 qofood oo hadee dalka aan wax tar ku lahayn maanta waxay leeyihiin avisionana loogu imaado waxa halkaas aan ku shireynaa shirkiya la tagay diyaar ma ahayn way ka baaqdeen kadib la leeyahay beel caalama fiiri dal nacabnimada heerkay ka taageen argagaas ragaasaan maanta u helinayna ragaasaan leenahay waa madaxweynayaal ragaasaan leenahay waxa intay dadka ay madaxweyne u yihiin ay dhintay ragaas madaxweynayaal ma galaan
waa dal dumis waa dal burburis wallahi la iska yeeli maayo maanta waxaa dhacayso doorasho qof iyo cod ah qofkii raali ku ah iyo qofkii diidanayba way dhacaysaa doorashadaasi allah musta'an doorashadaasi waa ka qayb galeynaa diyaaran ahay ilaahayna ha nagu geeyo samee iyo barwaaqo insha Allah warajeynayna nacdo qodobka xiga usoo gudba waxay tahay ninkan lagu magacaabo saadaq yarkan taliyaha booliska ahay ee maanta isiri waxa tahay nin amar ku taagleen iyo waxyaabo noocaas ku dhaqaaqay wallahi horta waxa dareemaysaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo qof kasta xuriyadiisa iyo sidoo u dhaqmo in nidaam lagu shaqeeyo meesha nidaam ay ka jiro meesha nidaam ay ka socdo meesha ma ahan dad meel lagu dilaayo dad baawar looga dhacay ma ahan meeshani ma ahan qof kasta inuu iska maamulanayo meeshani amar ayaa ka jiro amar iyo waxa lagu socdaa nidaam lagu socdaa qofkii diidan nidaamkaasina waxba laga qabanaya lagama yeelayo meesha uu taagan yahay xataa xukun loogu ridaya lagama yeelayo qofna looguma jixinjaxay taasi ninka saas ku dhawaaqa maantay muxuu yahay asaga hadda horta waxaa farxad inoo ah record noo yaala 7 daqiiqo maanta waxaa noogu dasantay record oo 2 daqiiqo bas huf hawada loogu cuno dad marka waxa dareemaysaa markaani runta la isku sheegayaa meesha waxa ka shaqeyso waa dawladnimo nidaam ayaa ka shaqeeyo cid kasta wixii doonto ma soo karto nidaam ayaa ka shaqeynaya meeshan nidaamkii qofka diidan hadee dawladnimada nidaam ay leedahay nidaamkeeda la marsiinaya cidna loogu jixin maayo cidna loogu buxay maayo dalkan dawladu leeyahay cidna loogu bootay maayo dalkan dawladu leeyahay qabiil kama shaqeeyo qabiil uu ka gudbo dalkani rag ku booteena qabiilnimo ma shaqeysa adeer qabiil ku soo baabaan oo ku soo dhibaatooni runtii wallahi billahi tallahi qabiil waliga uma haldan qabiilna kuma doodin qabiilka aan meel lama soo saam qofaan sidii anaga nin xuno anaga qabiilnimo oo ku orday iyo wax laakiin hadda waxaan idin sheegaa baaris ninkaas lagu wadaa waqtiyada soo socota insha Allah waxa la korkeeni doona maxkamadda ciidanka ayaan la horgeeni doona dawladda martaas qodobka ugu dambeeya gudgalaa wuxuu yahay raga mucaaradka ah oo ku booteenay maanta waxaan aadi doonaa Uganda waxaan ka dhici doonaa saan adeer aqliga ha shaqeeyo Shariif Sheekh Ahmed hal sano dheeri awood ku sheegtay oo waliba xataa madaxweyne hadda maxamed abdullahi farmaajo asoo doonay in dalka dawladnimo ay ka jirto ayuu kaga soo horjeeday oo wuxuu ku dhaqaaqay hal sano dheeriya akoon Kampala yaa ka hadlay yaa ka dhidii sheeg ma qabiila oo hadleena mise waxa hadleena dawladnimo oo hadleena laakiin warnaga taga qornaatiina dawladnimo meesha ka shaqeyso nidaam ayaa shaqeey markaan wallahi dalka nidaam ayo yeeshtay nidaam ayo ku soconaya nidaamkaas ayaan lagu hogaami doonaa cidna loogu bayeelimaa war cid la baryaay ma lahan cidna loo hor istaagi maayo ragaan yuucay meelaha taagan oo maantona saxaafada ahna la warhan laga waxay madaxweyne faraajo ma soo hadlo mana la hadlin mana salaamin maxay tahay waxa soo dhan waxa mucaarad lagu sheegaya والله أنا كفي عن أو كدل جعلني دلكيجا جعلها والله أن عندنا أبيين دلكيجا قفنا وجه جحمايو دل جعلني مو هدي كاتاي والله الصبح مركز سوق على سيدي وأركيا هبين مركز جفنا أركيا جفته دل جعلني ما إذا جعلني ما نوجد أنك نقوم جد هدي قبيل قبيلة يقرن نقوم جد أنك وحسبان كسو قدبنا وحسبان كسو تقنادر كلها بمينو رجع معارض كأهني رمت اللي اسكو شجع وأوجاين وأركاين مدحون فحام عبد الله إنه قد بقرون كدحجل أي أفسيون تجاي عندنا كهم هالين عند كذا اسم لهن وقلدين عندنا اسم لهن حيد لو مامل سيد كل على مركي إنه لو قد عنايا إن مدحون مع عبد الله في ما قلدين سيد نو قد عنايا سيد نو شجع أخلينا فيري ضد كذا مير كلا ماني كستاج مدحون وقلدين سان wax oo khaldaya ma lahan uu ku saxan yahay waa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wallahi waxa leenahay ilaahay waxa wax ka qeyr badan ha ku sii dalkan intaad maamul wallahi waxaad maamushaa rag dhintay qabiil ku baabay qabiilnimo ku baabay wax kastaba nidaam ma lahan waxa ma lahan waa qurun wallahi billahi tallahi hadaladooda marka dhigaystay waa ka nax wallahi dadka ku dhahayo u sacabtuma ay dhahayo ha saas waay qabiil soo celinay maxaa qabiil ku geeyay adiga قبيل ما حكوا دبر دكتي ما قبيل كدبر قبيل وحكوا صوب البرجي 1991 إلا أتونا وكويس قبيل ما حكوا فائدة قبيل ما حكوا فائدة قبيل ما حكوا سو سعيدني سعيشك والقبيل وحبكم مكينس وحنكم مكين أنا قبيل وأنت قبيل محنو كين أنا قبيل وحبنا مكانه دل كان قبل كما شقي وحي حد قبل أوضني دل كان شقي دونه قفي عض قف كسعود كيسو ديبنايا نمبر 1 وان تجي دونا عدكي وان ديبد دونا هدول هدينو إن شاء الله هدول إله نفي جو جارسين وان عضي دونا we love of Somali حقيقة دل كنا وحبكم بدلنا عنيقا
lacagna ku bedela maayo cunugan xunay booliska lacaga la siiyay hadal hebla tahay dalkaada iskale muqdishada iskale la yiri maxaa bacbacdu ku geey dalkan dawlad ma laha wasiir saas waa lacagta fiiri dadka lacagta ka hadal siisa Allah dadka lacagta ka hadal siiso lacag qof kasta lacag ka hadal siinayso fiiri war lacag wax ma tarto dalkaaga lacag ha ku bedelan iimaanka beele والله بالله تالله وإنا كدينا ذاك العجعلك إذا جعلني من كل شيء أو أن ذلك بأن دنيا هلك لهن وردلك ذاك جعل أنا حوجانك وديبنا وردلك ذاك جعل أنا وح وديبنا ورلاه كبقنا وردلك أن جعل أنا وردلك ما أنت وحنوج بهاي هاي وإنا قرب استجنا أنا ورفيري ذلك حد وسوكب عيا حد وحس ما محب بهاي متقنا wuxuu u baahan yahay in la caawiyo lagu caawiyo saan way saan war hadda qofka qaldan yahay aqalgaaga ha shaqeeyo ninfacaaga maanta uu saaxiibkaaga yahay oo qaldan yahay soo ugu sheegaysaa ishee ma caynaysa ma aflagaadeynaysa oo may waxa ugu sheegaysaa si wanaagsan waxa ugu sheegaysaa laakiin ragga idaacada soo istaagan waa kale tilnimo waa saan wax ka bixinayna saan waa ka bixinayna 2 sano iyo muddo ayaa xilkiisa ka soo wareegtay cid ju tiraahdo normalan فيري أقلقاga ha shaqeeyo nin xun oo ducducduca wax ku keenima waxna ku tiri maadar wallahi inaan soo waxba tareenin raga mucaaradka ana wallahi waa soo aragnay dhamaantooda oo ay noogu jiraan wax ay tarana malan wax qabad ee leeyina malahan war maxamed cabdullaahi farmaajo wax qabadkiisa uu noo soo bandhigay kadibna wallahi ana ku jecel aan noo soo laabo dal jecelnimo ay ku jirto oo dalkan kaga tagay wuxuu kaga tagay ninkan xun shariif lagu dhama shariif la yiraahdo والله هذا الكيس أنا سوق قال حتى مجعلن نيك حس الشيخ محمد الله سجني والله نص حال ضل جعلني ما واي أرج ميمو ومعالم معانيكم حلوجة بهيا إنه واي أرج هاي وحنا فهنسية وحنا أجي هلو بهيا والله حال حب ما فهنسنا حبضنا ما فهنسنا وحقو كل أجينا ملهن وإبر وعاد قاتي نن العقات العق وحكو بدشت ضل كيس العق ما كو بدشت وركيد كان كلك وحنا يكينا والله وحي كريو وجودي يجوبين عنيق وإجوبانية رجع هذا اللذو وإجوبي لقيسي ودنا مرمنا مرة من لقيس ما يرجع عند هذا اللذو وقشم وحنا ضلنكم مكين والله أغياري والله إيه وحنا هلا يا ودلنيرت هذا جرتو دلكو ذو فيرنا دل جعلم ذو كريستان هلا يا اتكلم هلا اتكلم وشيء ما نمات عنو حنو عايتما بقله wax u sheegi ma laakiin waxa u sheegaya ninka ay ku jirto dal jecelnimo ay wax u sheegaya walaalo meel kasta oo dunida ka joogto waxaad Soomaaliya ku caawisaa in aad ku taageerto wax kasta ee soo biso war meeqa ku dhigan meeqa daba taagan saas war dalkaaga haas loogu daba dhagan dabadaas loogu dhagaya fiir dabadaas loogu dhagaya aasal leedahay ninkan kaleeyo war madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo ninkii oo yiraahdo oo ceeriya ma kala tilnimo xas leeyahay may لم يرى ذلك التلميذ وحال هذا ودل جعلني ما لي هذا مانت دل كين وحولنا تصينا يا مانت نسكوف لنا يا مانت ورمانت دي لي ويرادو خرمده ميدو اي كنت هذا عنقبتين صارني والله بالله تلا سومالي فائده وجت فاذا سو حكميدا ديرتيدنا بيرتو خولهدنا وحيسته تبعاته وحنا وحيسته ديرتيدا سو بخسته اي وحيسته cuntadeedana ayda وحيسته raa warshado ayaan lahayn 1991 before waxaan lahayn warshado wax soo saaran oo lahayn dalka wax u dhoofin jirnay inta wax ka soo dhabsan wax ku bedel jirnay fiiri badeecaan ku bedel jirnay maanta laakiin maanta maxay taagantay in wax lagu soo dhoofiyo digirta yar ah u baahan to lagu soo boofiya ora waa lagu soo dhoofina lagu keenaya dalkaaga lagu tusaa inuu xun yahay ora adaa xun ee dalkaaga ma xumo adaa xun ee dhintay qabiil ku dhintay ora saan ka bax والله بالله تالله إني waxba ku keenin qabiilnimo iyo dal jecelnimo ragga mucaaradka maxal looga waayay inay soo shaandheeyaan ay yiraahdaan waraa ninkan hebel ameesho istaagno si aan bahasha aan balance ugu dhigno dadka tusina inaan dad kala duwan oo hadana hal fikir iyo hal ra'yi wada wato ilaahayo wallahi inuu ku jirin dal jecelnimo waxa ku jirto kursi jecelnimo iyo lacag jecelnimo iyo xoolo iyo dhulkadasha ku jirto waraa عبد الرحمن شكرا ما أنتوا حلو ليه سان وا حاشق محمد سان وا شريف سان وا ما أنت محن هرتاج يعني ورا هدي واحد تريان حل نيح يرادو بريمان بريد من عيد وضبط ديارة سيجلان جروك
ay ku carara aad arkaysaa dhammaantood ilmoodan waa dibadda ku wada maqayin anaka caruurteeni walaalaheeni ehelkeeni qaraabadeena dalka ku nool xabadda qushtireed anaka la dhibaysaa ee qof kale ma dhibayso uf wallahi billahi adeeg ku dhibaysa asaga ma dhibayso diyaaradu raacaya saas u dhuwaaya ole caruurtiisa ilmihiisana ku wada maqayin dalka oo dhan wallahi billahi waxaan la hadlayaa waa adiga dalkaaga ku nool dalkaaga joogo dalkaaga jecel ayaa la hadlayaa lama hadlayo nin xun oo caado qaata ah ilaahay ka baqo dalkan inuu wax ka qabto hore loo soconaya nin xun looma istaagayo dalkan hore u socon doona insha Allah hadduu ilaahay 2 sano soo socotane waa 2 sano ee barwaaqada dalka ay sii gali doonto qof iyo cod qof ka saaya cunay doonto muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan meel kasta oo dalka ay dawladda ka taliso ayaa laga soo coday doonaa qof kastana ka coday doonaa waxaana loo codeynaa mar labaad oo dadka 99% coday doonaan maxamed Abdullahi Farmaajo ilaa waxay og yihiin inuu yahay ninka kaliya maanta u qabtay ninka kaliya maanta wax badan u keen wax badan u taray oo yaa kale to maanta heerkan dalkan soo gaarsiiyay sheeg labada maamul goboleedna agoosto mid dhacay mid kale tan bil kadib oo dhacaya waana laga wareejinaa xukunkaana hadee ma dhici doonto sida Xasan Sheekh Maxamuud asoo madaxweyne ah inuu madaxweyne kale oo maamul goboleed soo horfadhiisay ma dhici doonto taas waaba laga soo tagay wixii la doorto madaxweyne Farmaajo warkaas waa ilaalad qof kasta wuxuu ogaaday in meesha maamul sax ah ka yimid maamul saxna ka shaqeey doono dhammaantiin wada jeclahay wallahi share gareey barnaamijka oo gaarsiiya qof kasta oo dal jecelnimo ku jirto wallahi waxa iga keen waa dal jecelnimo iyo dalkayga iyo ehelkayga qaraabadayda meesha ku jeclahay dalkayga dadkayga jeclahay ayadan rabaa inaan u qabto ayadan rabaa inaan u taro nin xun oo juuciyo aan wax u tari ma aniga waxan ii qabo ma waxan ii tari ma aniga وإذن سلام يا دماتنا قيارتا شير قرية ميل كستا إيجايا هذا ركتهن برامج كان وحا أبهناي دور كون أو شير أبهناي هلا قارسي ميل كستا عندنا والله إنك بقيت أنت إن كبدنا واسو هل دونا بنانك أي ذيك كين دونا وحبدنا أي توصي دونا دور إن شاء الله وإذن سلام يا ميل كستا دونك جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته